مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال وبرنامج أن أغتلق لي رمضانك أو تحنأه أو أن أغمق عدرني محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتاريخ نولولتك رسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه دلشديسي إلى دمشديسي. برنامج كان وحان أغتلق لي جيلك عصب سوك عيه ee Soomaaliyeed ee doonaya imika in ay sameystaan mustaqbal ifaya in ay sameystaan in ay lafahooda wax u qabsadaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkan. waxaanu rabnaa jiilkan cusub in ay yeeshaan oo ay helaan ku dayasho wacan rasuulkooda inaana looga sheekaynin iyo in ay wax ka ogaadaan dhacdooyinkii waaweynaa ee soo maray rasuulkeena suuban dhalashadiisii ilaa iyo dhimashadiisii. waxaanu rabnaa ilmaheena in ay helaan sarwo buuxda, sarwo ku filan oo ay ku daydaan oo ay ku soo qaadaan. waxaanu rabnaa in ilmaheena aanu tusno طريقة lagu jeclaan karaayo rasuulka, طريقة loogu dayan karahayo. waxaanu rabnaa 30 kan cisho in aanu jeexno wado cad, jidcada laami cad inaan jeexno oo aanu dhahno waatan Muhammad waa kan, waa inaad raacdaan, waa inaad daba gashaan, waa inaad ku daba fayshaan. waxa weeyaan adduunkan qofkan Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi aanan ku daba faylin oo aanan istaagin gadaashiisa waxa weeyaan aakhir is arki mahayaan. ilaahay nagama qadiyo aragtidiisa iyo rafiiqnimadiisa iyo la jirkiisa maalinka qiyaamaha. siiradan waxaanu xoog ku saari doonaa inta 30 kan cisho haduu ilaahay yiraahdo dhalinyaradeenna in ay jeclaadaan sidii ay ku jeclaan lahaayeen rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi, sidii ku jeclaan lahaayeen diintooda, sidii ku jeclaan lahaayeen dhaqankii ee akhlaaqdii iyo qiyamkii tadxiyadii wixii uu na baray ee uu noo dhaafay dhaxalkii rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. yaan laga qadin habeen walba haduu ilaahay yiraahdo telefishinka waa in la hor fadhiyaa. wala la limaada siirada maxaa loo bartaa sideedaba maxay faa'iido leedahay, maxay dheer tahay culumta kale ee fara badan ee in hortaala ee buuxiyay caalamka, makaatibtii buuxiyay, masaajidadii buuxiyay, dugsiyadii meel walba culimada laabtooda ilaahay galiyay. siirada maxay kaga duwan tahay, maxay dheer tahay siirada miisa fara badan ayaan u arkay aniga Maxamed ahaan ayaan u arkay in ay leedahay. waa markuu ugu horeysay waa duruus, waa cibar, waa qiyam, waa raxma, waa cadf, waa tadxiya. waxa weeyaan siirada
qudwa weeyaan waa akhlaaq wax walba aad u baahatid hadaad doonaysid inaad hurtid nafsadaada inaad u hurtid diinta hadaad doonaysid inaad u hurtid wadankaaga hadii aad doonaysid inaad u hurtid bani aadamka hadaad doonaysid oo aad dadka wax tarti aad doonaysid waxa weeyaan daa'im siirada ku dhaafin siirada waxaad ka helaysaa duruus kaamil ah waxa weeyaan taariikhda nolosha rasuulka sallallahu alayhi dhan walba waa mutakaamil macalinka waxay u tahay duruus mutacallimka ardayga waxay u tahay duruus ninka taajirka ganacsadaha waxay u tahay duruus waxay u tahay ninka mujaahidka ee muslixa ah faatiha ah waxay u tahay duruus bay u tahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi iyar hadii aan qodobada aanu sheegnay aanu ka yarata taabano waa markuu ugu horeysay in kunta faqiran faltakun laka uswatun bi abi alqasim agoonka yarka war hadii aad tahay faqiir hadii aad tahay oo aadan waxba haysanin waxa u hormariyay umadeena inteeda badan 80% faqiir weeyaan marka siiradan waxay niyada u dhisaysaa sheekada rasuulka waxay niyada u dhisaysaa taariikhda nolosha rasuulka oo laga sheekeeyo waxay niyada u dhisaysaa dadka fuqarada ah maxaa waxay rasuulkeena wuxuu ahaa faqiir wuxuu ahaa wuuna ku qanacsana oo uu ku jeclaa sida kuna noolaa kuna dhintay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa dogsoontiina gurigiisa hal diinaar aanan oolin shil aan oolin ayuu adduunka ka baxay bal deyn iyadoo uu u hayo waliba oo loo haysto ayuu adduunkan ka tagay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi طيب hadii aad tahay faqiir waxaad fiirisaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sanadii 7 ilaa 10 بعثديسي صلى الله عليه وسلم oo ku go'doonsan buuraha shacab abi talib الله aan ku dhaxgeeyo shacabka 3 sano uu ku jiray rasuulka oo ku go'doonsanaa rasuulka cunaya rasuulka asxaabtiisa cunaya huwa awraaq shajara geedaha waraaqdooda cunaya maqaar angegay oo leh oo qaar saxaabada kamida ay ka soo qaadeen dhulka cunayaan waliba ay ku farxeen markii ay arkeen maqaar meel yaala oo uu yara 20 sano meeshii yaalay markii ay dhawaaqiisii maqleen mid kamida saxaabada intuu soo qaaday uu qooyay uu jajabiyay bi intay ku qoysteen ay cunayaan oo halkaas oo dhan saxaabadii ay maal wada gashay 3 sano habeen walba marka laga maqlayay ilmaha oohintooda laga maqlay saabuu u maareeyay rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saabuu sandiintiisii uga tagin hal lama sheegin hal qof oo saxaabi oo ka soo baxay shacab abi talib maalinka isaga ah faqri inta leek oo caalamkii oo dhan uu go'doomiyay loo diiday in wax laga iibiyo in ay iimaadaan ay wax iibsadaan in wax lagu deeqo in wax la siiyo bi ibaad loo diiday 3 sano soo maareeyay rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ku day rasuulkaaga asagoo intuu marka ka tagay markii laga cayriyay dalkiisii uu jeclaa sanadii 13 ee bictada oo u haajiraya Madiinatul Munawwara Yathrib u haajiraya isagoo aanan sidanin xaabada adduunka isagoo aanan kulli ka sidanin sidoo noloshiisii u maareeyay sidoo u dabaray xaaladiisu say ahayd sidoo rasuulku ula dhaqmay xaaladan oo ula macaamilay siiradiisa ku baray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi طيب hadii aad tahay faatix hadii aad tahay mujaahid hadii aad tahay aad doonaysid in aad wadan xoreysid in aad gaalada ka kicisid in aad ku dhaqdid oo aad ku dabaqdid oo aad ku soo dabaash shariicada islaamka hadii aad doonaysid faltakun laka uswatun bi abi alqasim khadi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi faatix sawmaahid eek rasuulkaaga oo ku jira dagaal ka sharaf badan ka qiimi badan dagaalka imika aad kula jirtaan shacabkiina iyo maatadiina iyo maxaastiina oo aad dhiigooda ku daadinaysaan rasuulku ka dagaalamaya Makka rasuulku ka dagaalamaya Badr Uhud Hunayn Khaybar salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi sidoo ilaahay sharafka iyo qiimiga maatada dadka aan hubaysneen dadka aanan waxba sidan dadka maxaasta ah dadka dhulka yaala dadka caawimaad u baahan dadka aan haysanin kaalmo ilaahay mooyee sidoo rasuulku u gargaaray waa waliba ficil ayay ahayd taas isagoo idinku boorinaya oo ku boorinaya faatix walba mujaahid walba qof walba duulaan qaadaya oo waliba idin kula dardaarmaya
in la ilaaliyo dadka dhexdiina ku nool ee aan hubaysnayn maatada ay masaakiinta ah salawaatu rabbi wasalaamu calayhi eeg isagoo dhahaya aqwaashan latiifka ah naxariista badan عطفي وكجرو قلبي قبوجنايا كسو بحيا أفكا أدقون الشريف صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم الله ورموحا لذنكو قرقارا وهاد قرقار يقول كو عشان أو لذنكو إرزاقا ubad haday noqoto caafimaad haday noqoto dhan walba lidinku irsaqa illa bi du'afaikum du'afadiinan maahane wa odagaas indhaha aad goyseen ee indhaha aad ka rideen waa islaanta garoobka ee aad ka cayriseen magaalada waa ilmaha agoonka ee aad guryahoodii ku dumiseen waa dadka in ku dhaxnool masaakiinta ee lugaha aad jarjarteen ee xuryaanka aad ka dhigteen ee lixdii lixaad aad kala dhantaasheen dadkan oo idinka waliba doonahaya in aad guuleysataan oo lidin irsaaq hadana waa ka dhaxaya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi إنما ينصر الله هذه الأمة إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وأمد محمد صلوات ربي وسلام عليه إلهي وحقوق قارا ضعيف كذا كضعيف كأه من دورك دقولك مسكينك حقيرا ظلما ملك الجيفة وحبقان هيسان روبد عبية عالش بيها اسك جيفة روبك إدحانتا إدباشا ملؤو كقل لا كاويان كاللذين كونا حريسان حيو دعاء ذوذا صلاة ذوذا إخلاص نمذوذا قلبي ذوذا ونظيف تتكا إيقاه رسولك وكا صلوات ربي والسلام عليه رسولك أنو دونينا إنا كشاكينو سدن كان حلقة رمضانك سدن كان عشاء رمضانك ورسولك رسول الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب هدي آتهي قناعسده هدي آتهي تاجر هدي آتهي نصيبك وحنقضو كديشة رسولك صلوات ربي وسلامه عليه استغوا الله يتوان سنة جرا وأسعد مقالة مك انتو كسفري دادكي وويناء أكابرت أها قناعسي وهري استغوا لح سعودة وخبرتك قادن هاي رسول صلى الله عليه وسلم سيدي وحو قديان سيدي وحو معركة وإبنايان سيدي قناعسي وأسعود سيدي حد حالة ايتاي وحيابه سيحوك اللي قد قدينايان إلى بصرة وكتاقيا أول الشام رضي الله عنه الصلوات ربي وسلامه عليه يسقوا لتهاجراي او لغنعسنايا سائب ابن ابي سائب المخزومي شن إلا 20 سنه اسقوا جرا oo hadana ku ganacsanaya maalkii khadiija magaalada makka iyo magaalada banaankeeda ila iyo busra salawat rabbi wa salaam alayhi ku daysha kuugu ahaato سوء ما مولي جري الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خيانة مسمين جري بين مشيقي جري وح مسدو مرين جري وح مكالة ننتالي جري ورسول كان سوء قارسيي قولك إلهي سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم الله طيب وحويان رسولك صلوات ربي وسلامه عليه سيردي سوى متكامل أول بوحي كتهي متكامل ويان هدي أدونيست إن أد حق جوجست أو أد أوكتت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ددك أد جارسيس دعوة إلهي أول برحمة نورك رسولك أو نوكين أينك نحلي إن أدتك كددت هدي أدونيست أو آذن قرب هيسنين معين هيسنين qofku kaalmeeya ku difaaca ku xoojiya hadii ku dhiirigeliya hadii aadan haysanin ku dayo Muhammadul Yatiim salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi isagoo jooga Makka 13 sano isagoo Makka ku nool oo madaxa carro looga shubahayo isagoo dhaxaya qulu la ilaaha illa Allah oo doonaya mugdiga iyo waxyaabaha meelaha ay ku jiraan gudcurka ay dhax fadhiyaan iyo dhoobad ay ku jiraan reer Makka inuu ka soo saaray isagoo doonaya كدايو oo aan wax gargaar haysanin asxaabtiisu ay yihiin ducafo qaar kood la laayay qaar la curyaamay qaar indhaha laga soo tuuray qaar ay dhagoolo noqdeen qaarna si xun loo aasay oo loo dilay ma artaa oo ay waxba u qaban karin intii soo hartayna ay fiirinayaan rasuulkiyo carro lagu shubay rasuulkiyo la ceejinaya rasuulkiyo ma dheer la saaraya iyo rasuulku sidoo dacwadiisa u fuliyay sidaan uga harin illa akhiran uu ku guuleystay
akhri siirada salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. qof walba siirada wuxuu ka helayaa ku dayasho ayuu ka helayaa. haddii aad tahay agoon waayay aabihii hooyadii wax garab qabta adeer awow abti eedo habaryar aanan haysan qaraabadii oo dhan ku naceen oo iska adduunka iyo ma aragtaa iska dhex jooga oo heehaabaya hadda hawada ay dhan u sido haddii aad tahay ku daya Muhammadul Yatiim oo aan weligii arkin aabihii hooyadii 6 sano oo la noolaa isagoo arkaya meel saxara ah la yiraahdo abwaa u dhaxaysa Maka iyo Madiina ku aasay hooyadii 6 sano markii la keenay guriga awowgii isagoo aan waxba haysanin oo markaa yiri intee niyada u dagtay haddaad waalid heshay 2 sano kadib waalidkii uu geeriyooday sidoo la soo dhaqmay sidoo adduunka uu noloshiisa sidee bay ahayd sidoo la macaamilay adduunka sidee buu u waajahay si khibrad intee leeg ayuu kasbaday ku daya Muhammad haddii aad tahay agoon salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaad helaysaa farxad ayaad helaysaa waxaad helaysaa nuur ayaa qalbigaaga galhaya waynu soo laabanayna qadar xayisina dabadeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال وبرنامج كيني محمد رسول الله تاريخ نولد كي رسول كان صوبا صلوات ربي وسلامه عليه وحين نري تاريخ محمد نبت قلينا حارس كركيس الله يلي ومتكامل من والبا qof walba oo doona in uu ku daydo rasuulka qof walba oo baahan qof walba oo man wuxuu ka cabi karaa siiradiisa qof walba oo gaajaysan wuxuu ka cuni karaa oo ka dhergi karaa siiradiisa suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi. hadaa tahay shaab doonaya ganacsi inuu wax qabto lafihiisa ehelkiisa mustaqbalkiisa wadankiisa dadkiisa doonahaya caalamka inuu wax u qabto doonahaya u kaalay Muhammadul Yatiim salawaatu rabbi wa salaamu calayhi oo Maka dhexdeeda ku raacaya ari ku raacaya isagoo 8 jir ah wixii uu ka soo helay uu ka soo kasbaday ilaahay uu ka soo siiyeyna uu keenay adeerkii Abu Talib si uu ugu caawiyo 10 ka ciyaalka ee uu dhalay oo aan waxba haysanin 8 sano ayuu jiraa wuxuu dareemay mas'uuliyadda waxa ay tahay wuxuu ku yiri adeerkii waxaan doonayaa awwal yawm oo uu ku soo wareegay guriga adeerkii waxaan rabaa in aan shaqeeyo inaan wax qabto adeer waa yar tahay maya damirkiisu wuxuu siin kari waayay inuu iska seexdo oo uu fariisto oo uu wax cuno oo uu wax cabo kaliya وكالي محمد اليتيم صلوات ربي وسلامه عليه 12 سنة isagoo jira oo magaalada Maka intuu ka tagay aaday Sham iyo Busra aadayo ganacsi sameynaya 25 sano isagoo jira sidoo kale hadana Muhammad al-Yatiim mustaqbalkiisa sidoo u dhisay ilaa uu ka guursaday gabadhii Quraysh oo dhan u qiimiga badneed Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. haddii aad tahay zawj say haddii aad tahay xaas hadaad leedahay oo aad qabtid gabar aad jeceshahay oo iyadana ku jecel u kaalay oo akhri siirada محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أخذ سيرديسة مع حبيبته مع خديجة بنت خويلد رضي الله عنها سدوء لما عامل الجري الرسول كان صوبا صلى الله عليه وسلم خديجة سدوء لما عاملين شن إلا واتنكي سنة أو أي إسقبين خديجة يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه دقن كود سيدبوها أخلاق سيدبوها درس سيدبوها هاين المها وبت جورج جوجا يا وبحا إفايا وبحا عرفون دحجوجا جورج عرفون إفايا مك إفيي عالم كي مكارره دمات إفيي وبت دحجوجا نلشوا سيد أهيت سيدكو أهيت خديجة محمد دحذوذا رسولك سدو عائشة ولا رقم جرى رضي الله عنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحيابه وين يا أياكو صباحا هدي راعديد رقم كرسولك زوجاتك سؤول رقم جري واسد أن أباها النهي يا إن أد أولا رقم تان وحيابه فربضن وأي لأيهين ما أنت أي لأيهين هوين كيني قرمك وقدم بيسي حاسكا وأدحديد وأكو جعل هاي
xaaskaagu inta u imaadid dhabanada ka dhunkatid halka ka dhunkatid goorma kugu dambeysay Allah 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 طيب rasuulku wuxuu ahaa acdamu shakhsiyatin fi taariikh shakhsiyadii ugu weyneed ugu koreysay ugu qiimiga badneed ee caalamku uu arkay ama akhriyay ay ahayd ama uu maqlay Allah 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 marka siiradiisu aad raacdid oo aad akhrisid oo aad dabaqdid waxay keenaysaa adaguna in aad noqotid isagoo kale acdamu shakhsiyatin fi taariikh noqotid in aad noqotid يا من عظماء التاريخ إن أدنى قتلي كينيسا الله ورميدان ربين إن أد dadka aad dhex joogtaan aad u sareysaan wax aad u dileysaan aad isu dileysaan aad isu nacdeen u kala tagteen idin nacaybka idin kala dhex dhigay gidigeen qof walba wuxuu doonayaa kan kale inuu ka sareeyo Soomaa waxa la soo xasdeeyay qof walba inuu sarmar ayuu doonayaa laakiin wada khalada weeyaan siirada rasuulka dhaqanka rasuulkaaga la raaca weeyaan waxyaabaha lagu helaaya akhri siirada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam warso dooni maysan Yurubad ku nooshihiin Amerikad ku nooshihiin Aasiyad ku nooshihiin dadka aad dhex joogtaan waa dad aan diin lahayn soo dooni maysaan in aad bartaan oo aad nuurka ku fidisaan dad mugdiga weeyaan Muhammad markii uu ku dhax noolaa mugdiga ee uu joogay Makka isla markii iyada ahayd wuxuu bilaabay in uu fidiyo oo uu ku fido ya nuurka joogitaankiisa kale ayaa Makka ee gaalada dhexda uu joogo ayaa raxmad u ahayd idinkuna waxaad tihiin al-ulama warasatul anbiya baatiin ummadii baatiin dadkii dhaxlay ayaa tihiin nuurka khayrka ka dhaxlay ayaatiina biyeedan doonayeen dadka la joogtaan raxmad ina u noqotaan waa in aad akhrisaan oo aad dabaqdaan oo u koro gashaan siirada rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi tayib inta in ka badan aan u soo dhawaana rasuulka sallallahu rabbi wa salaamu alayhi gurigiisii aynu tagno khadiija bint khuwaylid makka radiyallahu anha خديجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبة رسول الله يا حبيبة رسول الله نوغورن رسول صلوات ربي وسلامه عليه خديجة waxay noo xushay oo ay noo doortay laxda kamid ah laxadaadkii faqra kamid ah faqaraadkii uu soo maray rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku ka soo daadegahaya buuraha Makka gaaru Hiraa oo ordaya oo naxsan oo dhahaya zamiluni Allah 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 wa ay Khadija dejinays Allah موجودة ما أركيسا خديجة رسول كطبطبيسا أو مدح أسلاحيسا أو لا تجلسي أو نهيسا كلا والله لا يخزيك الله أبدا محمد لا يخزيك الله أبدا ليه خديجة دينين أقولين موحي بكسود دقي إلهي إن أوسن هوجنين محمد سيكو قرتي فطرة سليمة عقليده راجحها فترته aad wanaagsaneed iyadoo ahayd gabadh ugu qiimiga badan Makka Allah waa waxyaabo waxay u sheegtay qof walba ku sifaysnaada qof walba uu ahaado dhaqankiisa aanu hooyeynin waxay tiri innaka la tasilu rahim إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قرابة حرير سابيتره الله قرابة الحريريو ضعيفك ولا عاويه وحيابه أن لهلي كرنو معدومك أو أدتك أنت أكسبتد أجيسد مرتد أول صوره هدي بلايو أي إمادو كلا أما دجال دعان أما دبو يمادو أما وحيابها صورا la caawiyo sida Soomaaliya maanta loo caawinayo kale dadkan maanta guryahoodii la burburiyay ee dagaaladu aafeeyeen ee maanta banaanka waran sida loo gargaarayo kale kii mas'uul u qoda kii biyo u geeya kii kale oo meel walba loo gurmina sifooyinkan waa sifooyinka ay Khadiija ku amaanaysa rasuulka sallallahu rabbi wa sallam alayhi wana ku sifaysana rasuulka sidonkan 20 wad ogaan doontaan Muhammad sidoo uu caawin jiray bulshada sifooyinkaas ay ku taqaanay markaas ay tiri wallahi la yukhzika Allahu abada وكالي خديجة وكالي عائشة رضي الله عنها مكة مدينة وكالي خديجة وحي أهد مكة وكالي مدينة عائشة رضي الله عنها مركي لو ويديجي
akhlaaqdiisa rasuulka nooga waran akhlaaqdiisa khadiija noo sheegtay sifooyinkiisa qaar kamida dhaqankiisa akhlaaqdiisa nooga waran adigana wax naga sii aanu weheshano aan dugaashano aan ku raaxaysana aan annagana ka dhaqan yeelano aan ku dayana rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi muhammadur rasuulullah Aisha waxay leedahay kaana khuluquhu alquran Allah akhlaaqdiisa waxay ahayd Muhammad القرآن يمشي بين الناس قرآن دح سعودة dadka dhex socda garabkaaga bidix hortaada gadaashaada dadka wehel yeelaya oo dadka dhex maraya oo dadka ayuu ahaa Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi lee quraan socda xagee lagu arkay li'annahu dhaqankiisa dhan baa quraan ahaa joogiisa Muhammad markuu taageen salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa dareemaysa aayad quraan aayad quraan ayuu ka tarjumaya joogiisa istaagiisa uu hor taagan yahay afka doo kala qaado waxaad xusuusan aayad quraan hadduu kula dhaqmaayo oo kula macaamilayo tijaarado kale markuu sameeynaayo afwigiisa saamaxadiisa waxa dareemaysaa aayad quraan asxaabtiisa markuu dhex fadhiyo u sheekaynayo sidoo kale zawjaadkiisa markuu la joogay xaasaskiisa aayad quraan markuu uu duulayo dagaalamayo aayad quraan baa dareemaysaa isagoo dhan baa quraan inta waxay ahaayeen dadkii uu jeclaa rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ehelkiisii qaraabadiisii saxaabadiisii u kaalay a'daa'u rasuul cadawga rasuulka u kaalay Abu Sufyaan waaga cadawga rasuulka ku ugu daran ahaa u kaalay isagii iyo Hiraqal boqorka oo sheekaysanaya oo ka sheekaysanaya Muhammad Hiraqal ayaa wuxuu ku yiri Abu Sufyaan sidee weeyaan ninka la idin ka soo dhax saaray dhaxdiina sidoo ku yahay markaas wuxuu yiri sifooyinkiisa fiir uu ku sheegay Abu Sufyaan cadawgiisa waxyaabaha uu u qiraaya rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi hadaa leedahay waa asxaabtiisii dadkan waa dadkii isjeclaayeen waa xaasiskiisii wax kama sheegi karaan cadawgiisa kaaleeyo dhageysa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaan ku cadeynayaa dhan walba rasuulka mutakaamil inuu ka ahaa oo uu ka dhameystirnaa annagana sidoo kale aan ma aragtaa hadii aan ku dayana rasuulkeena suuban sidaas oo kale aan noqonayna inaynan ka waaynayn rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wax walbo aan uga baahnahay nolosheena aan ugu baahnahay nolosheena طيب Abu Sufyaan wuxuu yiri rasuulka waa marka hore salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuuna amraya ya'muruna as-salaah was-sidq ya'muruna as-salaah was-sidq wal-'afaaf وصلة الرحم الله 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 فطرة سليمة وحويان فطرين إلهي كأبوري إنسان كواي ومانت أنك أن لأنهي إذن وحيابي إلهي أنو أبوري أن كنا لنمانت واللأنهي وحا أن كسبنا إسكداي وحي إلهي نسي أو نو داقي أيام باب إني أو أن هدو كردقني أو أن إسكرحن أو أن معرفة أن كتلاب سنين ويروحون أمر الصلاة أيون أمره وأصل بين العبد وبين ربه الله الصلاة عماد الدين صلاة تكسي ديران مين وصلاة ونور أيان وشكيني وحون أمره رمت إنا شيخنا رمتنا خيرك أيكوها نساء إلا الجنة أيكو جيسو محمد سفوينك أقوى نفسنا أولها أيا وحوها محمد الصديق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وسفوينك أو ونكسن رسولك أولها ويان وحون أمره العفاف نورصونان جركينا نفسدينا دينتينا dhaqankeena akhlaaqdeena wadankeena bulshadeena dhan walba inaan dhowrsoonaano Allah وحيابا أنو لعنها أنه ويان أو أين أباهنها وصلة الرحم وحون أمرها الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وحون أمرها يا قرابة إن الحريريو سفوينكي مركي أو مغليه رغل أيا وحيو لغيسو يري أبا سفيان وحاad sheegaysaa hadii run ay tahay oo uu Muhammad ku sifeysan yahay sifooyinka wanaagsan halka aan joogo isaga qabsanayo uu iman hayay ku bishaarayso yiri ogsoonow الله محك الأبهان تاي مرك انت صدقا رسول مرة بتان يا ميلها أدوكتان قديين وحدونيسان قديين وحاتيهن دعاء أياتيهن ودن كيني واتكا حدين ودن شيشيات دوكتان ودن كاشيشيها يا أيها وحال الرواء إن أد كفوا لسان رسالة أدونك محلدين كونوا تكونوشين أدونك وحدونوشين إن أد قد بسان مدحال كلاد هايستان
wixii aaway aad ka dhaxasheen waalidiintiin wixii oo dhan waa baabeen xaaba adduunyo weeyaan insaanku wuxuu insaanka kala ka dhaxla xaabo weeyaan xutaam dunya way baaba'ayaan maxaa wacay iyadaaba faaniya ah sifadeeda faaniya ah adduunka lagu waari mahayo shayga kaliya insaanka ee dhabta ah ee sida xaqiiqada ah ee runta ah loo dhaxlay waxa weeyaan risaalada weeyaan quraanka iyo sunnada weeyaan waatan uu nagula dardaarmay rasuulkan uu leeyahay goosaha ku qabsada الكتاب والسنة سنة ذا هي كتابك القرآن الكريم قوس دنبيتك وإنك قبستان وتنقوليه مركا سياد أقود بسان مركا رسالة ديسا وواجب إذن سارا وواجب إذن سارا ددك إن دولياشا أن وحدها يسن مقدق كنول قد عركا روابد دحجيفة قرنك كل حجرة أسلام تعابدها ديمقراطية أتكون حنوسيين وإن أت خيرك برتان وإن أت خيرك كفدسان وإن الدين تبرتان وإن الأخلاق دين دقن كين يكسوها هنونان وإن أصحابك كسبتان وإن عالمك أردن وإن خيرك أسامية محمد صلوات ربي وسلام عليه سيدو عالمك أردن وأسامية خير كيسي وأجهادي وما أركتا وأوفديي أصحابيس أي أوفديين أيان أننا وحانو ربنا إن أنا أوفدين إن شاء الله هدو إلهي يرى هذا إذن كمان تنوغلو أو جوغا أو لجوغا دادكي انت بدن أباهنا صلوات ربي وسلام عليه لحلكيسة وإن لقد بياه إنسان قردن وإن لقاسياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في